macalinkan aan ugu sheekayno inuu rabadaan yahay oo aan soomanahay galabkiina nala fasaxay duuradiina aan luuqyadeena badar ku cunayna waxa waaye ceelasha markaa degantaa waa taqaanaa waxa waaye meelo waxaa jiraan goofafa meelahaas waxa la aadaynay rootigeeni mooska wala maalintii ugu yaabka badneed waxay ahayd oo rabadaanka Soomaa waxay ahayd maalin dugsiga subax adag oo jiray oo aaga fasax qaad soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan Ramadaan Kariim waa bil qeyraysan Ilaahay hana aqbalo fadligeeda iyo qeyrkeeda Ilaahana waafajiyo qof walba wax uu rajeynayo waa bisha ugu qeyraysan ee 12 bilood ee sanadku dhex jira waa bisha muslimiinta ay mar walba ay ka faa'iidaan hadaba muuqaalkan waa barnaamij aan bilaabay oo maanta koow inoo yahay barnaamijkan waxaan ugu magac daray xasuusta yaraantaada ee Ramadaanka xasuusta yaraantaada ee bisha Ramadaan shakhsiyaad caan ah ciyaartooy shakhsiyaadka caanka baraha bulshada ayaan waxa ku weydiinay yaraantooda waxyaabihii ay sameyn jireen markii la gaaro bisha Ramadaan dad baa waxay ku dhudhuuman jireen masquulaha dad baa biyo caabi jiray dad baa rooti gada jiray malaay marka dadkaas ku wareysan doona barnaamijkan xalqada koowaad waxaan ku bilaabi doonaa ciyaaryahan Farxaan Xidig oo kamid ah kooxda kubadda cagta Horseed hadaba adigoo i daawanay xitaa qayb ayaa ka tahay barnaamijkan qaybta committee-gana la wadaag yaraantaada waxyaabaha aad sameyn jirtay xasuuso dib u xasuuso soonka wax yaraantaada sameyn jirtay muhiim inoo tahay fariimahaada committee-ga muhiim ayuu inoo yahay sababtoo ah waxaad tihiin saaxiibada kaliya aan haysto maanta fikirkaada quruxda badan hoosna la wadaag saaxiibadaada silma soo mishin galay saaxiib haddii aad uu jiro saaxiib ah xasil cuni jirteen qaybta committee ku soo mishin galay waad ku maasantiin daawasho wanaagsan ku dhawaad saaxiibkeenani والله رمضان هذي له يرانتي هذي دي بلول لابتو wax badan aan la xasuustaa anako dhalinyartani yar oo yar dugsiga iska waxa jirtay in macalinkan aan ugu sheekayno inuu rabadaan yahay oo aan soomanahay galabkiina nala fasaxay duuradiina aan luuqyadeena badar ku cunayna taas xasuusta داتا مكحليس أسوأ حسستي يحدد فرقي ودحية ما أنت بدأ رمضان تاعي والله وحول دحية فرق عادي أدوين سببته هذا وحالة دوبتي ما هيران تادنا وحول مركا يرتا وحول باص مينسا وحاجرتي مرة يارد ليلين حتى وبنوني عن ليلين إن عن محله عن بياهوس كعبنو رقصه من عن دردرنو أوكله لكن هذا وحوي ولا وين هذا وحوي مسكح ذا وكرتي وحوي هذا ولا من هذا ما أنت كل يوم كبرت ما أنت والله ما أنت وياك كبرت وحيد أو رمضان كسمة وحيد مالين دكسيك الصبح عذق وجري أو عاقف صح قاعدنا بايسا إذا ساس كسهل ما أنت سوي يابك بدنا وقتي نجرت مالين وارتي كوكبتي هذه واحد استعمال أو شيء كيسي إن منها صومنتها ما والدكي ويلي ما أنا أذكره مانين وحواي علاش مركا دقنتها واتقانا وحواي ميلو waxaa jiraan goofafa meelahaas waxa la aadaynay rootigeeni mooska wala gaal leeyahay adoo sooneen oo cudbiga u soo soomanahay afurki والله أفرك وحوي مركي لجارو أو guriga la imaado afurka soo dhow yahay waxa lagu galgalnaa saliga sidii nin soo manacay markii afurkii la gaarnay ninka ugu horeeyaa taa wax tumay dadka xaafadan waxay ku haystaan inay soo manta waqti hadda ahaan weyn oo maanta soonkii wixii la kala qaanatay dhalinta maanta jirta oo da'ada soo martay maanta ku jira maxaa ugu baaqay والله dhalinyarta waxa ugu baaqi lahaa mar walba inay soo waxooda la dhoomanay si saxda ah ay hadlaan si dhalinyarta dugsileeda marka taa waxa way macalinka waxa ka soo fasax qaadanay galbihi waa soomana tacbana subaxii oo dhan waxa way duurkaas ku jirta oo xarabta cunaysa waxa ugu baaqi lahaa inay soonkood si sax ah